madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud oo ay wehelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Jubbaland iyo maamulka gobolka Jubbada Hoose ayaa ka qayb galay qaybinta deeq raashin oo loogu talagalay ku dhawaad 2,000 oo qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose si ay ugu afuraan inta ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan. deeqda raashinka ah oo ka kooban qaybaha kala duwan oo cunooyinka oo ay soo gaarsiisay hay'adda Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta soona marsiisay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gabagabada qaybinta raashinka waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waxaana uu sheegay inoo keentay hay'adda ka socotay Imaaraadka oo bilowday saaka ka bilowday magaalada Kismaayo 1,500 goob waxa lagu qaybiyay goob 1,500 goob baa lagu qaybiyay si wanaagsan ayuu ku dhamaaday waxaana qaatay dadkii loogu talagalay insha Allah qaybta kale oo dhimanna waxaan geyn doonaa tuulooyinka ku hareeraysan magaalada iyo meeshii kale oo la gaarsiin kara haddii alla idmo waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer Kismaayo istajiya raashin badan baa soo socda dadku raashin waa wada helayaa ciduna yeysan u qaadanin in la qadiyay ciduna wax la siiyay yeysan u qaadanin raashinkan wuxuu ku dhamaaday si guul ah wuxuuna ahaa raashin runtii itemkiisa oo aad u fiican yahay caano timir bariis bur saliid iyo caleen shaah waxaa la dhihi karaa raashin aad u wanaagsan ayuu ahaa qoyskiina wuxuu helay 76 kiilo ayuu qoyskiina helay iyo waliba wax dheer marka waxaan isleenahay si wanaagsan ayuu ku dhamaaday cid allo calfayna reer Kismaayo waxaan rabaa inaan u sheego Allah u barakeeyo qolada inta kalena hadda maanta wax helina idinkan waxba la insiin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo qaybinta cunooyinkan ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli baahi weyn ay u qabeen dadka danyarta ay ku nool magaalada Kismaayo laguna guda jiro gabagabada bisha barakeysan ee Ramadaan. Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.